waxaan u safri doonaa mid ka mid ah deegaamada ugu halista badan Somaliland si aan wax uga ogaado dhibaato soo taxnayd muddo qarniyo ah oo ka imanaysay cadow aad u halis badan cadowgaas oo galaafanayay nafaha 10kii qofba 9 ka mid ah marka uu soo weeraro aniga oo lugeynaya aniga iyo ninkaygii ayay wax cuntay odagaygii sidoo waa shay halisa kuna beeran deegaanka la siciidle maxaa dhaday qaybta loo yaqaan waliba guban ilaa xeeb aad bay u joogtaa dadkana si aad bay u laysaa waxaan garaadsaday iyadoo dadka ay aad u layso 100 qof ama 10 qof midba ka kici jiray 9 kale way u dhiman jirtay inta badan awowayaashii iyo adeerada iyo yada laysa haddana sidaas oo ay tahay khatartu wali waa mid joogta ilaa iyo waqtigan isla markaana wali awood looma laha in laga hortago ama laga gaashaaman karo khatarta cadowga halista badan balse sababtu maxay tahay lagama hortagi karo adigu qofka marka dambe la badbaadiyo la daweeyo maxaa dhaday loo gurmado mooyee waxa weeyaan maxaa dhaday bahal weyn oo la iska eegayo ma waa xawayaan lama filaan oo ma garanaysa qofku xilliga uu gudayo iyo xilliyada uu jirmaadsan yahay iyo xilliyada dhaaxba kulaylaha dhaaxba maba gafsato way cuntaa dadka laakiin iyadu waa mucjiso waxba kama baqdo maxaa dhaday waa daalin ku xun inkastoo deegaanadani ay yihiin dhul eeri go'ana way baaxadiisu aad u weyn tahay way ku nool yihiin dad tiro yar oo xoolo dhaqato ah waqti ay aad ugu adag tahay gurmadka gaadiidka ma jiraan siyaabo kale oo dadka loo badbaadin karo marka uu cadowgani haleelo adeer waa qofka markay cunto sidii berigii hore ay aan kugu iri 10 markay cunto midba ka kici jiray hadeer maxaa dhaday dawladna uu jira magaranaysa qof markay 10 qof naga cunto 9 baa ka kaco midkii baa dhinta midna qofkii keligii cid la maraya meelan degaan magaranaysa aan reer miyiro oo maraya markay cunto isaga iska warbixinaya hadeer xitaa haday naftu qabato ay ka sii baxayso hadlaya marka adeeganaad baa looga faa'iideysto waana adeegaad fiican marka hore wax kasto maxaa dhaday yimaadaba horta waxaan ku mahadinaynaa dawladda iyada sharafta leh marka xigtana telesom baanu gacan ku siinaynaa mar haday noo sameysay adeeg noo kala shaqeeyo waxaan ku suganahay magaalada Laasciidle oo 120 kiiloomitir dhinaca ka xigta bari magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil isla markaana xad la leh gobolka Sanaag oo wax ka yar 40 kiiloomitir marka dhinaca u baxdo bariga aad sii galayso gobolka Sanaag deegaankan waa deegaan aad u ballaaran inkastoo ay jirto abaar baahsan haddana waxaa jirta dhibaato kale oo abaarta ka sii halis badan dhibaatadaas waxa weeyaan waa abeesada deegaanka waxa aad ugu badan abeesada waxay laysay jiilal fara badan oo qof kastoo reer Laasciidle ama qof kastoo deegaanka ku nool waxa uu ka sheekeeyay dhibaatada ay abeesadu ku hayso waxaan halka maanta kula kulmay fursad helay Canab Ismaaciil Cabdulle oo xog badan ka haysa abeesada iyo siyaabaha ay dadka wax u yeelayso dadka deegaanka ku nool Canab marka hore salaam calaykum calaykum asalaam waxaad iga warantaa abeesada iyo sidii dadka dhibaatada ku hayso abeesadu waa shay halisa kuna beeran deegaanka la siciidle maxaa dhaday qaybta loo yaqaan waliba guban ilaa xeeb aad bay u joogtaa dadkana si aad bay u laysaa waxa weeyaan maxaa dhaday bahal weyn oo la iska eegayo ma waa bahal yar oo jalfis ah oo daafta jiifa ka bacdi qofka ay ku dhufataa maxaa dhaday wixii aramideeda uu la dhacaya marka waxa weeyaan muddo dheer anigu waxaan garaadsaday iyadoo dadka ay aad u layso qofka abeesada cuntaana aanu ka kicin abeesada waad garaadsatay waxa jira kolba marka ay dadku dhibaato soo food saarto waxbay ka bartaan ama si uu la tacaalaan dadka reer miyiga halkan markaanay ateeno jirin aanay adeeg caafimaad haysan markuu qofkii miyi joogo siday marka ula tacaalaan maxay sameeyaan berigii ay dhulku iska jahliga iska ahaa waan adigu intaan neef qalabaan iska u gelin jirnay cagta maxaa dhaday meel haran waan u waabi jirnay oo maxaa dhaday lagu waraabiyo qofka loo rusheeyo ka bacdi qofka sida aan anigu intii aan garaadsaday garanayo qofka dadka markay cunto abeesadu 100 qof ama 10 qof midba ka kici jiray 9 kale way u dhiman jirtay inta badan awowayaashii iyo adeerada iyo yada laysa qofka markay abeesadu qaninto أو مال الله جو marka laga yimaado in neef agta loo geliyo ma jirtaa wax kale oo qofkii gargaar oo la siin karo
waxba de waxaan tarayn adigu abafaas yar iyo timir iyo waxaasaan de wax adigu iska de maare rabaan u gelina afka oo waxba ma tarayaan waxa jira inta badan Somaliland dhakhaatiir idaacada radio Hargeysa oo hadda dhageysanayso kale ka soo gala oo ka warrama cudurrada kuwa ka warrama xanaanada xoolaha wali ma la xiriiraan xiriir ma la samaysan si ay dhibaatadan u arkaan dhakhaatiirta noocaas aniga oo lugeynaya aniga iyo ninkaygii ayay wax cuntay odagaygii ka bacdi markii ay cuntayna anigu ma dareemay sida ay u cuntay markii ay cuntay mana aqoon marka abeesada qaabkeeda ma garanayn way cuntay buu yiri markii aanu lugeynay muddo nus saaca aanu lugeynay abeesadiina uu dilay isaga garanayo ayuu ninkii dhitay markii uu dhitiyayna anigu de maxaan dhaday de nin xabada ku dhacdo dhacawn baan arki jiray maan arki jirin de maxaan dhaday nin bahal yar intuu qaniino dhaca markii aanu yar soconay ninkii uu dhaca oo miyir beela uu mantaga markii uu mantagayna anigu marka idaacada Djibouti baan dhageysan jiray waxaan ka dhageysan